dadka danyarta ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sameeyay dibadbax ay dawladda Kenya uga codsanayaan inay siiso cunto maadaama goobihii ay ka shaqaysan jireen xayiraad lagu soo rogay. dad dibadbaxayaal ah oo ka cabanayay xayiraada lagu soo rogay xaafadda Soomaalida ee Islii ayaa isugu soo baxay degmada Kamakuji gaar ahaan deegaanka Section 3. dadkan ayaa waxay dawladda dalka Kenya ay ka dalbadeen in la soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhawaan ay dawladda amar ku bixisay in aan la soo gali karin lagana bixi karin xaafadda Soomaalida ee Islii. dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno. waxa ay sheegeen dadkan inay u soo shaqo tagi jireen xaafadda Soomaalida ee Islii. Inaango naitwa Mzee Hassan. Sisi hakuna kazi. Watu wanazuia ndani ya jumba, hakuna rashini jumbani, hakuna kiki yoyote, hakuna rashini jumbani. Shaqo ma haysano, dadka guryaha ayay ku jiraan. Cuntana ma haysano. Annaga shaqaalaanaha. Dukaamanki markii laga xiro xagee ka shaqaysanayna. Maxaa bariis la cunaya? laba maalin bas baahi lagu dareemo 15 bari xagee joogtaa. Tunaelewa hii ugonjwa iko, si hatuelewi. Maana yake ni kwamba watu wa Islii wamekubali hizo siku ambazo mnatupatia, lakini serikali usaidieni na chakula. Waanu fahansanahay in xanuunkan uu jiro, ma ahan inaynu fahansaneen. dadka ku dhaqan Isliina waxay u hoggaansameen amarka dawladda, balse waxaan dawladda ka codsanaynaa inay cunto na siiso. Angalau hata tukikaa ndani kila mtu hayana. laga soo bilaabo galinkii dambe ee maalintii Arbacada ahayd markii dawladda dalka Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida ee Islii, waxa ay soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo ah in Islii ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda. cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay shaqada warbaahinta ee dalka Kenya. wariyayaasha ka howlgala warbaahinta gudaha Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa kamid ah wariyayaasha uu shaqooyinkoodu saameeyay cudurka. inkastoo wariyayaasha ka howlgala magaalada Nairobi ay intooda badan wali ka shaqeynayaan xafiisyada xarumaha sidii caadadaba ahayd, haddana wariyayaasha ayaa sheegaya in xilliyada ay xafiisyada u soo shaqo tagayaan gaar ahaan xilliyada bandowga ay su'aalo kala kulmayaan laamaha ammaanka. Maxamed Yuusuf Colow oo kamid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sharaxaya saameynta ay dareemeen wariyayaasha iyo caqabadaha ay wariyayaasha la kulmaan saacadaha bandowga. waxaan xaafadda ku laaban jirnay ugu yaraan 3 saacadood ama 4 saacadood. waxa dhacda in xitaa adiga hoole ay ku dhaman yihiin oo aad shaqooyin kala doonayso inaad qabsato meesha lagu gaaro 10 saac waa in alaabta diyaarsataa. dabcan waxa laga yaabaa inaad marto ilaa iyo dhowr gobood oo markaasi laamaha amniga taagiin, haddii kuwana aad ka badbaado waxa laga yaabaa in kuwa kale aysan ka badbaadi karin. qaar kamid ah xarumaha warbaahinta ee ku yaala xaafadda Islii ayaa hakiyay jadwalkii maalinlaha ahaa ee shaqooyinkooda kadib markii xayiraadii dhawaan lagu soo rogay xaafadda Islii ay saameysay dadkii wariyayaasha barnaamijyada kala qayb gali jiray. Maxamed Xaaji Gool waa barnaamij soo saare ka howlgala idaacadda Midnimo oo ay bahwadaagna yihiin idaacadda VOA. saameyn weyn ayay nagu yeelatay xagga shaqada howlmaalmeedkayga. guud ahaan waxaan oran karayaa waxa istaagay dhammaanba barnaamijyadii aan soo saaranay oo maalinlaha ahaa, taasi oo ay ugu cad tahay xanibaad markaasi dhanka waxa weeye dadka. sababtoo ah dadku waxay ahaayeen dadkii aan wareysanay, marka way nagu adkaatay inaanu helno haddii ay noqon lahayd dhanka kulanka caadiga face to face ka, taas way adag tahay. haddana waxaa adkaaday khadadkii laftigoodii dadkii inta badan markaanu wacno waxayna leeyihiin jaam baanu ku jiraa, hadda suurtagal maaha. marka waxa weeye waxay noqotay complicated ayay nagu noqotay arrintaas. xaggii barnaamijyada ayaa aad wax weyn uga adag. marka waxaan oran karnaa boqolkiiba waxa weeye 70 hoos ayay u dhaceen barnaamijyada aan soo saarnay. waxa kale oo ku darayaa waxa weeye aan jecelahay sida la socono bil Ramadaan baa lagu jiraa. bisha Ramadaan way ka duwan yihiin bilooyinka kale maadaama dadka Islaamka ay iyagu waxa weeye ay barnaamijyada ka sameyn jireen dhanka waxa weeye sadaqada, oo dad waxa jira ilaahay wax siiyay oo sadaqaysanayay oo ay u suurtagal weeyday oo nala soo xiriiray inaan markaasi dadka waxa weeye aan ugu yabo si markaasi ay u gudbiyaan wixii markaasi ay ugu talagaleen dadka waxa weeye fuqarada. marka taas waxa weeye horta saameynta ugu weyn bishan waxa weeye aan ku tilmaami karaa. waxa kale oo khadaro meesha ku jira runtii isbedel weyn baa ku dhacay dhanka waxa weeye dhaqaale ayaa bulshada waxa weeye Kenyaanka ku dhacay iyadoo guud ahaan caalamka ay saameysay.
haddana waxaad moodaa in si gaar ah oo khaas waxa weeye dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii diyaarinta macluumaadka warbaahinta muuqaalka ee la iska arko waxa ay kamid tahay shaqooyinka ugu adag ee ay wariyaasha ka shaqeeya telefishinadu ay qabtaan waxaana jirtay saameyn ka dhalatay go'aanada ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ee ay ku xakameynayso faafitaanka cudurka coronavirus oo ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay dareemayeen wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta la iska arko Foos Ibrahim Ciid waxa ay ka shaqeysaa TV-ga 5 ee magaalada Nairobi waxa kamid ah in wariyaashii goobo badan oo ay tagi lahaayeen oo ay warbixino ka diyaarin lahaayeen ama xogo ay ka heli lahaayeen mararka qaar waxa dhacaysa in aysan tagi karin saameynta kale ee ugu weyn ee uu nagu yeeshay corona waxa kamid ah in xaruntii TV-ga kala idaacadii marka ay Islii ku taalo kuma imaan karo qofkii marsida ahaa ee aad barnaamij ku balansatay inaad ku wareysato ama waxyaabo kaleba aad ka doonayso inaad xogo ka hesho qofkaasi kuma imaan karo maadaama Islii aan laga bixi karin lana soo gali karin tan kale dibta ugu weyn ay tahay waxa ay tahay xaruntiiba mararka qaar inaad tagto ayaa kugu adkaanaysa adigoo u baqanaya dhinaca caafimaadkaaga sababtoo ah inta meeloodo aad sii marayso gaadiidka aad raacayso xarunta laftigeeda aad tagayso ama dadka jooga waxaad isleedahay mararka qaar ku galaya shaki ah dadkani ma wada caafimaad qabaan sababtoo ah adigu guriga waxaad kaga soo tagtay dad iyaga caafimaadkooda ilaalinaya ee ku jira arintii stay at home oo aan guriga ka soo baxaynin balse adigu waad baxaysaa hadiiba naftaada kaliya aadan u baqaynin waxaad isleedahay guriga waad u soo laabanaysaa maxaa dadka jooga u keeni doontaa ee aan bixin iyagu naftooda ilaashanaya Cabdiqaadir Cumar Cabdille oo isna kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo wariyaasha ay kaalin weyn ka qaadanayaan wacyigelinta ka hortagga cudurka coronavirus uu haddana geeska kale cudurku saameeyay wararkii maalinlaha ahaa ee ay wariyaashu soo tabin jireen qayb ayaan ka qaadanayna inkastoo uu xakeen laftigiisa corona marka fiilis qadaro waxaad moodaa in inagoo oo awalba xoogtinimo wax lagu shaqeynayay in hadana mar kale uu isagoo nasiib karantiile oo saacadii macna la shaqeynay oo banaanka la joogay oo magaalada dhexmaray inay kooban tahay in sidoo kale dadka isku imaan karin oo kale kulamadii dhici jiray ee rabadka laga sameyn jiray sidoo kale mar qaar waxa laga soo wareejiyay iskuulada xafladii ay qabsan jireen oo kale waxyaabaha soo ila ay muddaa in meesha uu ka saaray oo war ahaan ay wararkii bulshada loo tabinay ay soo yiraadeen hase ahaatee wixii qayb ayaan ka qaadanaa in bulshada aan ku wacyigelino inay ka fogaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka samareyka adduunka ee saameeyay coronavirus-ka saxafiyiinta oo maanka ku haya sidii ay naftooda uga badbaadin lahaayeen khatarta bushiga halista ah ee corona ayaa waxa ay mar walba ku dadaalaan sidii ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin